isagana wuxuu leeyahay 30 casho oo kale inuu ku magacaabo golihiisa wasiirada waa 60 casho waxaan ku magacaabnay 15 casho oo tayda ah iyo 21 casho oo tiisa ah markaas dadku waxay leeyihiin war maxaa qabanaysaa war ma hore socotaan marka waa dhab weeye waxaan ku jirnaa waqti urgent ah sense of urgency aan ku jirnaa waqti badan baa naga lumay waxaan rabnaa waqtigii lumay inaan dib u soo celino sidaas darteed ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inaan dadka aan xulanay aan ku xulanay anigu dad badan oo waxa jiray asxaab aan haa oo jeclaa laakiin ballantiida hore waxay ahayd inaan ka shaqeeyo danta dalka iyo dadka qof kasta oo siyaasi oo yiraahdo warniyo ninkan iga qabana aniga hay fiiriyo hal qof oo saaxiibaan ah meesha kuma jiro marka sidaas runtii waxa noogu suurtooday inaan magacaawno dad wada hufan oo wada jaamiciyiin ah oo kulli khibrado wada leh ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hawshooda u fududeeyo waxa laga rabaa ma aha in la ansixiyo kaliya waxa la rabaa dadkaas in la xisaabtamo oo haddii ay shaqeyn waayaan mooshin yaan la oran laakiin maxaan ku yiraahdaa constructive criticism waxa la yiraahdo naloo soo guddoonyahay wasiirkaas dhalahaas u leeyahay waxaan ballan qaadanaynaa wasiirkaas hadduu toosi waayo inuusan nala sii shaqeyn maxaa yeelay annagu waxaan ku shaqeynaa danaha shacabka Soomaaliyeed iyo danta guud aan ku shaqeynaa ee qof gaar ah aan danihiisa u fulleena ma jirto walaalayaal ilaahay amarkiis waxaan idin sheegayaa wax yaab leh maalintii aan magacaabnay golaha wasiirada maalintii ku xigtay roob baa bilowday oo weliba gobolada waqooyi ka bilowday maanta iyo shan waxa la sheegay meelo badan oo ka daay marka waxa laga yaabaa golaha wasiiradu inay khayr la yimaadeen idinkana ducada noo badiya in ilaahay uu naqabuujiyo roob badan noo keeno si dhibka ina haysta abaaraha ah uu naga dulqaado iyo colaada weliba waxaan runtii rabaa inaan u mahad celiyo dowladda Kenya iyo madaxweynahooda iyo shacabkooda sida diiran oo wanaagsan oo runtii aniga iyo wafdigeen noo soo dhaweeyay runtii waxa meeshaas ka muuqata inay diyaar u yihiin in la furo page cusub oo ku dhisan mutual interest and equal footing macnaheedu waxay tahay dad isxushmeeya runtiina diyaar u ah inay wada shaqeeyaan ku wada shaqeystaan iyagoo danaha dalkooda eegaya maslaxadda dalalkooda eegaya inaan isku soo dhaweeyno maslaxadeena oo ay kamid tahay inaan furno xiriirkii iswadaarsiga dhaqaalaha inaan furno taasi waxay keentay madaxweynihii shalay aniga isaga inaan press conference sameynay uu ballan qaaday in uu furo diyaaradihii isaga gooshayay tooska maxaan ku raahdaa ay ahaan jirtay xamar iyo Nairobi in dib loo soo celiyo waa ka xumahay dadka reer Wajeer waxa laga yaabaa xoogaa economic hardship inuu ku dhaco laakiin runtii dadkii Soomaaliyeed waa rafaadeen maxaa yeelay waxay mareen agony bay mareen iyo dhib bay mareen inay soo maraan Wajeer ayna maraan the same process ay maraan markay yimaadaan Nairobi marka taasi waxay fududeynaysaa isu socodka iyo ganacsiga labada dal intaas waxaa dheer in aan isweydaarsano runtii aqoonta iyo tababarada iyo maxaan ku raahdaa iyo waxyaabo badan inaan isweydaarsano sida la sheegay xuduudkii waa furnay oo dadku waa soo gooshayaan ganacsigu waa labada dhinac waa soo gooshi doona haddii Ilaahay yiraahdo marka meeshaas runtii waxa ka soo baxay oo aan sii xoojin doonaa insha Allah xiriirka labada wadan oo runtii ku dhisan saan sheegay maslaxadda labada dal oo xushmad leh taasna waxaan aaminsanahay iskama imaanay waa hawl aad qabateen horay oo aad uga shaqeyseen maxaa yeelay afkiisu wuxuu iga sheegay Soomaalida halkan joogta inay yihiin dad fiican oo sharaf badan oo runtii dalkan dhaqaalihiisa kor u qaaday oo dad shaqaysta ah yuu sheegay marka taasi macnaheedu waxay keentay inuu xushmeeyo dalkii aad ka timaadeen waan uga mahad celinayaa majority leaderka aadan ducaale iyo ragiisana aad iyo uga shaqeeyeen runtii hawshaan inay fusho oo hawshaan ma ahayn hawl iska dhacday waxay hawl hore looga shaqeeyay marka waa kaaga mahad celinayaa
ganacsatada Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow dal aan dhaqaale lahayn ma shaqayn karo anigu waxaan la imaanayaa amaanadii inaan la tartamo dalka ugu hufan oo ugu fiican oo la yiraahdo Denmark yaan rabaa inaan la tartamo markay noqoto hufnaanta meesha aan kaga jirno 176 wax naga hooseeya ma leh marka waxaan isku dayayaa meel kore inaan keenno si aan u keenno hadda waa inaan helno dhaqaale aan maamulno ganacsada waxaan ka codsanayaa marka rugta ganacsiga halka nala jooga iyo ragga naga maqanba inay dawladda taageeraan oo awal haddii shaki ay ka qabeen wixii ay dhiibaan in meel kale la marsiinayay ballan baan kaga qaadayaa dhaqaalahaasi in sidii ay tahay in loo maamulo oo qof shakhsi ah uusan si xun ugu tagrifan laakiin de maxaan nagu xisaabayaa haddii aan waxna loo dhiiban waxaan ka codsanayaa ganacsatadu inay u hormaraan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay canshuurta bixiyaan dalkan budgetkiisu aadan ducaala ii sheegay wuxuu ii sheegay $100 bilyan oo dollar weey sanadkii bisha dawladooda meesha anagu ay ka tahay inaan sheego mar rabo $300 milyan oo dollar marka waa dhaqaale runtii lagu maamulo hal iskuul soma garan yaan rabnaa waddan inaan ku maamulno macnaheedu ma ah dhaqaale la'aan inaan hayso dadkii baan bixinayn canshuurtii dadku haddii canshuurta bixiyaan oo dawladooda kalsooni siiyaan oo ay aaminaan waxaan aaminsanahay dhaqaalehen inuu gaari karo 20 bilyan iyo ka badan 20kaas bilyan oo la xalayay way ka baraka badan tahay 100 bilyan marka saan aaminsanahay marka ganacsatada waxaan ku boorinayaa ilaahay dhaqaalaha idin badiyo waxa haystaan waxa ilaahay kugu daro laakiin in dawladdiina aad maxaan ku raahdaa wixii ay ka mudan tahay oo canshuura aad siisaan waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya marka dalkeenu waa dal kheyraad badan waxaad arkaysaan oo loogu dal wareegayo macna darri ma wax badan yaa Soomaaliya yaalla Soomaaliya waa dal qani ah haddee noqoto oil and gas haddee noqoto mining haddee noqoto waa wax dhulka hoostiisa ku jira oo haddii aan caqli la imaanno dawladda dadka Soomaaliya imaanaya oo investment ku sameynayana waa inay helaan dawlad aamina ogaada dawlad tuugaha cid wax ku darsanaysa ma laha waxyaabaha ugu horeeya oo adduunka ku soo jeedaya investment waxa kamid ah dawladdan corrupted miya corruption kan waxa keenaya qof iimaan la oo aan patient lahayn oo aan suuq karin waddanka horta inuu qani noqdo oo raadinaya kat wax la yiraahdo iyo commission fee qofku markuu arka marka la yiraahdo kat keen wuxuu leeyahay meeshan haddaad billion galiso hadhow maxaa lagu weydiin doonaa war waxaan waa tuugay waxba iska gelin meesha laakiin markuu arko in fakarka uu aaminsan yahay oo dawladihiisa ku shaqeeyaan uu ka dhex arko wuxuu leeyahay dalkani waa dal aad aamini karto systemka hadda aan bilawnayna oo dimuqraadiyadda ahna waa haysanaa oo de rule of law ah oo la isdacweysan karo adduunka la isku dacweysan karo marka haddaan la imaano ammaano iyo dimuqraadiyad oo clean ah oo san qofna design gareynay election ugu soo noqon lahaa midda kale aan sheegay waxay tahay anu ma design gareenay si aan ku soo noqon lahaa maxaa yeelay 4 sano inaan noolaan doono kala ma aqaano waxaan soo ogahay maanta inaan shaqeyn karo maanta shaqadan qabto haddii aan ku soo noqon karo waa alxamdulillah haddaan ku soo noqon waayo qof iga fiican la helana waa ka sii fiicanta laakiin qof design gareyn kara election ma jiro waxaan ka shaqeynaynaa dawladeen inaan maanta shaqada qabanno noo taala biri ma ah biri waa balan gareynaa waa qorsheynaa laakiin shaqada maanta aan qabanaynaa marka shaqadaas waxay noo liid gareynaysaa marka dadku inay aaminaan caalamkuna ay wax nagu darsadaan saas darteed caalamku markay investment keenayaan muhiimku waxay tahay inay ka dhaxarkayaan inaad tahay aamin dawlad clean ah oo transparency leh oo accountability-geedu meesha ugu sareyso yahay dimuqraadiyad iyo sharcina ku dhisan labadaasna de waa labadii aan u dhaaranay oo aan dhaarta u marnay oo ay tahay khasab inaan fulino dalkeenu waa qani waxaan idin sheegayaa in ummad Soomaaliyeed ee gaajo u dhimato ama cunto dibadda looga keeno runtii waa dadnimo xumo haysata waana sharaf xumo iyo magac xumo runtii aan leenahay way
Soomaaliya waxay leedahay markaan idin sheego 8 milyan oo hektar oo aan u baahnayn fertilization best aan u baahnayn wax maxaan ku yiraahdaa dhulku waa fertile way uma baahna in sun iyo bacrimin uma baahna bacrimin uma baahna marka waxaan ka beernaa oo kaliya wax ka yar 100 hektar 8 milyan diyaar ya noota oo labadooda dhexdooda ah oo diyaar oo hadii mirihii lagu tuuro hore ka soo baxayaan waxaan leenahay bad aad u dheer iyo sidii shalay uu sheegay maxaan ku raahdaa qof baa sheegay madaxweyne ku-xigeenka yaa wuxuu lahaa waa meesha kaliya badda Soomaaliyeed ee malaygu uu doqonnimo ku dhinto meel kale adduunka malaygu doqonnimo ku dhinto dadkeenna gaajo u la'aanayaan marka waxaa la rabaa malaygaas intuusan doqonnimo u dhiman inaan adduunka u suuq geyno waxaan leenahay xoolo fara badan intaas marka la dhaafo haddaan caqli la imaano dalkeena macdinta ku jirta wax caadi ah maaha meesha strategical adduunkan kaga naalana meel adduunka nala mid ah ma jirto waxaas dhan waxay nooga halaabayaan runtii dawladda la rabaa inay tahay dawlad hufan oo wanaagsan oo capacity la timaada iyo shaqo wanaag la timaada oo waxaan cudurkaas uu sheegay aadan ducaale oo qabiilka ah wax jira ma aha ana idin sheegay wax jira ma aha haddaan baadiyo uga soo tagno magaalo nimid waxaan rabaa inaan sidii caalamka iyo adduunyada horumartay ay u nool yihiin inaan u noolaano oo aan ku shaqeyno war yaa noogu wanaagsan yaa wax qaban kara yaa noogu daacadsan yaa ilaahay ka baqaya laakiin haddaan ku qaadano intuu caali cun lahaa intuu baaniyaal cun lahaa cali habaysisto intuu baaniyaal cun lahaa cali habaysisto macnaheedu waxay tahay kan kugu doqonsan noole oo wax sii haddii qof doqon ah oo wax matara ah oo tuuga kuma noolayn karo maxaa yeelay isagaa tiisii gabayba marka annagu waxaan ka ballan qaadaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan sidii aad nagu doorateen 40 sano soo socota inaan waxba iska bedelin insha Allah waana la caayi karaa waa dhab dadku mid maaha dad aan fiyoobin yaa nagu dhex jira oo qaarkood dawladnimo si kale u fahamsan ama si kale wax u arka annagu ma diidayno criticism waa okay wax dhibaato ah annagu ma aragno weliba waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxaayo marka og tahay adigu in wax lagaa sheego waxaad leedahay war waxaas ama wax ka jiraan balbaar dhib uma aragno ugu dambeyntii waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow aan isu gurmano aan iscaawino dadkan baaba'aya Soomaaliyeed oo abaaruhu haligeen oo dhibaateeyeen oo xoolaha ka dhameeyeen waxaan idinka codsanayaa inaan jeebabkeen u furno qof walba wuxuu awoodi karo uu ku tabarruco wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh